badaha ugu khatarsan caalamka waxaa jira bada ku caan baxay khatarteeda badan laakiin maxaa ka dhigay badaha qaar mid ka khatar badan badaha kale waxay jawaabtu ku soo aruuraysaa in ay jiraan cawaamisha kala duwan ee lagu abuuray ama in ay khatartaasi ka dhalatay waxay bini'aadanku sameeyeen. kanaalka Dathreeg inta aan la qodin kanaalka Panama waxaa la mari jiray kanaalka Threeg halkaas oo ay ku kulmaan labada bad weyn ee Atlantic iyo Pacific waxayna goob ahayd cimilada adag iyo dabaylo xoogan oo lagu qiyaaso 10 darajo marka loo eego aaladda lagu qiyaaso dabaylaha ee Beaufort iyo duufaano aad u weyn. Rio Tinto waa webi yar oo ku yaala Spain wuxuuna isku bedelay midabkiisu casaan midabka dhiig oo kale waxaa webiga ku dhex jira biro tiro badan oo ku dhex milmay webiga sidoo kale webigan waxaa ka buuxa bakteeriya. webiga Ditarom wuxuu ku yaalaa webigan galbeedka magaalada Jakarta ee Indonesia wuxuu webigu ka soo bilaabmaa buuraha wuxuuna soo maraa badda Java laakiin nasiib darro webigan wuxuu ka mid yahay webiyaasha ugu wasakhda badan caalamka waxaana ka buuxa maadooyin kiimika ah iyo qashinka laga soo qabo magaalooyinka. kalluumaysatadu markay yimaadaan webigan halkii ay kalluunka u gaarsan lahaayeen waxay ka soo aruursadaan waxyaalaha balaastiga ah si ay dib ugu iibiyaan shirkadaha balaastiga sameeya. badda Karachi waxay ku taallaa bartamaha Ruushka waxaa ka buuxa baddan yar suntii iyo tijaabooyinkii nukliyeer ee ka soo hadhay dagaalkii qabowba waxay isku beddeshay baddaasi dhammaanteed sun haddii uu qof u dhowaado baddaas muddo 1 saac gudahood bay ku dilaysaa. Fukushima 2011 waxaa ku burburay xeebaha badda Japan xarun nukliyeerka lagu samayn jiray oo Fukushima ku taallay waxaana burburkeeda sababay duufaanadii tsunami waxaana halkaas ku sumoobay xeebaha badda Japan ilaa waqtigan aynu joogno.